magaalada Burco waa magaalo madaxda labaad ee Soomaaliland xagga tirada dadka ama base population-ka ku dhagan magaalada Burco waxa lagu qiyaas ahaan 300 oo kun oo ruux inay ku dhagan yihiin magaalada Burco. Juqraafiyan waxay dhacdaa bartamaha dalka Soomaaliland, taariikhan waxay kaga jirtaa meeqaam sare. sanadadii ugu dambeeyayna magaalada Burco waxay ka horumareysay xagga caafimaadka, waxbarashada, kaabayaasha dhaqaalaha. waxa kale magaalada Burco ku soo koray dhismayaal casri oo kala duwan hore uga jirin magaalada. waxaana xusid gaar mudan in magaalada Burco ay ka horumartay sanadadii ugu dambeeyay xagga caafimaadka. xagga ganacsiga la fahantiisa magaalada Burco waxay si toos ah ugu tiirsan tahay xoolaha nool. maxaa yeelay Burco waxa ku taala saylada xoolaha ee ugu weyn Geeska Afrika. ganacsiga Burco waxa uu xiriiriyaa bariga iyo galbeedka Soomaaliland. cimil ahaana Burco waa dhexdhexaad. bulshada ku dhaqan magaalada Burco waa bulsho ilbaxa oo jecel nabadda kana shaqaysa. ururka bisha casee Burco waxa uu ka yahay ururada sida buuxda uga dhex muuqda magaalada Burco kuna firfircoon tababarida dhalinyarada. waxa ururka bisha casee Burco hormuud ka yahay tababarista dhalinyarada ee caafimaadka, waxbarashada, ka qaybgalka wacyigelinta arrimaha bulshada, kor u qaadista xirfadaha dhalinyarada, shaqo abuurka dhalinyarada. dhalinyarada ka aflaxda haddaba bisha casee Burco waxa ay ka dhex muuqdaan goobaha shaqada. ururka bisha casee Burcona waxa uu ka yahay ururada ugu magac iyo manfaca weyn ee ka howlgala magaalada Burco, isla marhaatan ay ku naalooto bulshada ku dhaqan magaalada Burco. federeenshinka bilaha cas iyo lanqeeraha cas waxay si weyn u daneeyaan kor u qaadista dhalinyarada aqoontooda iyo tababaridooda, waxayna ku tiirsan yihiin dadaal iyo taageero ballaaran. The youth, they are the leaders of the future, and for that reason the Federation has a full-fledged department at the Secretariat of the Federation in Geneva dedicated for the youth, just to take care of all the youth issues in the Federation across the national societies. When we talk about the International Federation, we talk about the membership. The membership, the Red Cross and Red Crescent national societies across the world. There are now 189 national societies members of the Federation. So imagine the number of youth membership of these national societies globally. There are millions. So to prepare the youth to serve their communities and to prepare them for leadership in the future, there must be programs to develop the youth activities. ururka bishcas ee Burco tababarada uu bixiyo waxa kamid ah literacy oo akhriskii qorista, first aid oo gargaarka degdega, computerka, vocational skills oo xirfadaha. ardayduna waxay ahaayeen markii ugu horeysay 1826 arday, waxaana ku kordhay 830. totalka ardaydu waa 2656 arday. mashruuca IGA oo ah mashruuca shaqo abuurka waxa ka faa'iideystay 11 arday. action teamska waxa ka faa'iideystay 60 arday oo ay tababartay GRC-du. hygiene-ka waxa ka aflaxay 7 arday. action teamskana 20 arday. HIV AIDS-ka 9 arday. FGM-ka 5 arday. DM-ka 5 arday. tracing-ka 7 arday. conflict mediation-ka 5 arday. sport team-kana 7 arday. dhalinyarada mutadawiciinta ee bisha cas ee Burco waxay qayb lixaad loo wax ku oola ka qaataan daryeelida IDPs-ka ama base barakacayaasha. taageeradan oo ah mid ay aad ugu jilicsan yihiin. waxqabadka dhalinyarada bisha cas ee Burco koobno oo kaliya waxbarashada iyo tababarada kala duwan, balse waxa dhinac socda tiimka sportiga oo shaqeeya kana jira gobolada Soomaaliland. mashaariicda ay bixiso bisha cas waxa kamid ah IGA oo ah mashruuc shaqo abuur, waxaana ka faa'iideysta sanad kasta tiro ardaya kuwaas oo ku shaqeeya kalana soo baxa wax ku filan oo ay ku maareeyaan noloshooda. waxa jira arday fara badan oo ka aflaxday bisha cas, gaar ahaan ardayda qaadatay tababarka caafimaadka, kuwaasoo waqti xaadirkan buuxiyay baahi weyn oo bulshadu u qabtay uguna adeega cilmigii ay ka barteen bisha cas, kuwaasoo qaarkood ay ka howlgalaan magaalada Burco. waxaan nahay maxay tahay arday la yiraahdo magaciisa la yiraahdo Nuux Aadan Xaaji Yuusuf oo arday kamid ah volunteer-kii ka soo baxay bisha cas 2007 ilaa 2008 inta ka dhaxle. markaas ka bacdi waxaan markaan ka baxnay
bisha cas annagoo volunteer ahaan u shaqaynayna annagoo practicalkiina kasoo qaadanay oo ay bisha casina geysay iyadu cisbitalka guud ee magaalada Burco. waxa su'aal mudan oo isweydiintu tahay maxay ka filaysaa madaxda bisha cas ardaydii ka qalin jabisay maxayse ka tiri dhalinyarada ururka bisha cas inay noqdaan madaxda hogaaminaysa dalka ee berrito wadana dhalinyarada aad u masantihiin wad ku ambaliyeenaya waxa tiin dhalinyarada meesha ka baxday oo maanta anaga waxaan weydiinaya oo heerka maraya oo waxa loo jeeday wixii laga jeeday kala garanaya ambaliyeenaya sidaynu hore u soo xusnay waxqabadka iyo tababarada bisha cas waa kuwo wax ku ool oo taabaqaad oo miisaan culus ugu fadhiya bulshada qaybaheeda kala duwan maanaha wax la soo koobi karo waxqabadka ballaaran ay u taagan tahay bisha cas waxaana ay bisha cas heegan ugu jirta kor u qaadista aqoonta dhalinyarada iyo mutadawiciinta oo ay ka ciyaartay door muhiim ah kuwaas oo ka dhex muuqda bulshada